muuqaalkan isaga ah waxaan kugu siin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo aan u bixiyo talooyin jaaba ah laakiin mid waliba waxay ka saacidi doontaa inaad nolol wanaagsan oo tayo leh aad noolaatid arrinka koobaad aan hore u galo waxa muhiim ah inta uu qofku ku jiro dadaalka iyo waxa weeye halganka nololeed ee maalin walba qofku uu ku jiro waliba gaar ahaan ninka dhalinyarta ah in aad xoog saartay ayay tahay processka shaqada oo aad xoog aan saarin natiijada haddii aanad fahmin aan ku yar koobo tusaale ahaan oo kale waxaad doonaysaa inaad quraanka aad qaybtood qof xaafid ah aad noqoto soo maaha hadaf sareeyo wanaagsan ku dadaal in aad xoog iyo focuska aad saarto shaqada maalinlaha ah iyo hawsha joogtada ah ee aad qabanaysid hankaaga iyo xoogaaga ha saarin markaad dhameynaysid bimacnaa qofku haddii xooga uu saaro amaba hankiisa oo dhan uu geliyo dhamaynta quraanka waxa suurtagal ah inuu mar walba kitaabka markuu sidaa u eego uu arko tonjis oo waxa weeye aan yarayn oo sugaya laakiin markaad maalin walba aad xooga aad saarto aniga waxba igama gelin waxa weeye dhamaynta iyo xilligan gaari doono ilaahay u baag maanta waxa ay taala inaan inta ka baxo amaba inaan inta diyaariyo toddobaadkan waxa yaala inaan inta qaybo bishan waxay qorshaysaneen inta aan sameeyo markaad xoog iyo focuska aad saarto waxa maalinlaha ah ama joogtada aad sameynaysid in badan waxa aad ka nasanaysaa warwarkii iyo walbahaarkii hadafka fogay uu lahaa arday baad doonaysaa doctor inaad noqoto inta aad 7 sano aad dhameynaysid waqti aad u dheer marka waxa ka wanaagsan oo fiican inaad xoog aad saartid maxaa semesterkan laga rabaa maxayba toddobaadkan iyo inaan akhriyo maxayba bishan ay tahay inaan qaybo marka doonaysaa inaad hadaf u jeedo wanaagsan aad gaadho ku dadaal inaad processka waa shaqada maalinlaha aad xoog aad saarto waxba si joogto ah ugu fikirin waxa weeye yoolka fog ee aad leedahay sida quraanka oo dhameeyo doctor aan noqdo shaqo fiican aan helo arrimaha noocaas oo kale arrinka labaad ee sugan muhiimka ee aad iyo aad wax badan ku taray waxa weeye marka aad ku jirto waxa weeye hawshu waxay doontaa noqoto waxbarasho ganacsi allahumma salli ala maxamed dacwad mar walba ku dadaal inaad haato qof mutawaadic ah is dhul dhigay is miskiininayo oo waxa ugu taxta buugaag baaba laga qoro qolooyinka reer galbeedkan waxa weeye diintu ay ku yartahay ama baan ilaahba aaminsanayn waxa jirta kitaabada aad wanaagsan oo la raado ego is the enemy oo macnaheedu noqon isla weynaantu waa cadow macnaheedu waxa qofku marka uu aamino inuu sareeyo aad iyo aad buu liidanaya tusaale ku siinaya haddii aad aaminsantahay inaad aqoon yahantay qofku hadduu arrintaa aaminsantahay waxba baran maayo haddaad aaminsantahay inaad maal qabeentay ma shaqaysan maysid haddaad aaminsantahay inaad dadaal badan muujin maysid marka mar walba ogow waxba ka maqan haddaad aqoon raadinayso cid ka aqoon sareysaa jirta mar walba ismiskiini guusha aad gaadha mar walba ku faa'iideyso inaad ismiskiiniso tiraado intana ilaahayba isii wax ka badan ilaahay baan rajeynaya waxba ma ihi arrinta iyada ahi waa wax weyn culimadeena islaamkuna aad bay uga hadli jireen waxaan taladan iyada ku siinaya waqtigan hadda aynu joogno isla weynaanta maran ee aanay waxba ka hooseyni waxa weeye astaanta dhalinyarta iyo dadka lagu yaqaano adduunka waqtigan jooga isagoon waxba hayn ayuu doonayaan la yiraahdo aqoon-yahan isagoon xilba hayn ayuu doonayaan la yiraahdo waa xikmadyahan sareeya marka always stay humble mar walba qof miskiina mutawaadic ah dantaada ku jirta isla sidoo kalena horumarkaaga adduunyo iyo ka aakhira labaduba waad ka helaysaa insha Allah waxaan xasuustaa ugu dambeyn ku soo gabagabeynay nin waalanba wuxuu aad ugu celcelin jiray ereyga iyo kelmadda ah waa hooy ha ismacaashisiin bimacnaa uu ha iska dhigin qof macaashayo kale waxba ka maqanaysa gaaji marka adiga laftaada ha ismacaashisiin ayaan ku leeyahay arrinka saddexaad waa talada saddexaad aan ku tirinayo inay tii talooyinka jaabada ah waxa muhiim ah inaad qabiilkaaga dhisato qabiilkaaga markaan ku leeyahay haddii aad arday tahay waa inaad yeelataa bulsho arday wanaagsan oo ku xidhantay haddii aad qof daaciya waxa muhiim ah inaad qolooyinka dacwadda ka shaqeeyaad ku xidhantay haddii aad doonayso inaad qoraan noqoto waxa muhiim ah ugu yaraan inaad bulsho weynta dadka qoraaga ah inaad ku lug leedahay haddii aad tahay qof creator ah oo labuura ama youtuber ama soo gudbiya muuqaalo qolooyinka arrinta la xidhiidha inaad xoogaa aad ku xidhantay waa muhiim si guud haddaan u dhahdo qabiilkaaga dhis waxaan u jeedaa cid kastoo waxaad danaynayso ama waxaad doonayso ama waxaad rabto inaad gaadho inuun ay wax idinka dhexeeyaan oo aad hawl wadaagtihiin inaad la xidhiidho oo aad la joogtaa waa muhiim aad bay muhiim u tahay marka mar walba ku dadaal in waxa weeye qabiil iyo cid soo xigta aad ku xidhnaato sababtu waa maxay marka aad baahantahay bay ku saacidiyaan khibrad ka maqan bay ku siinayaan dhiirigelin bay ku tahay laakiin haddaad kaliya aad ordaysid waxa hubaala inaad safarka in badan aanad ku soo jireen taladaas waxa wax ka taraysaa
ganacsiga waxay wax ka taraysaa waxbarashada waxay ka wax taraysaa dacwadda waxay wax ka taraysaa hawl kastoo is leedahay qabo mar walba inaad dad aad isku qabiiltiin oo isku haybtihiin haybteen qani ma aha naga daataa ma ay haybta yani waxaad qabanaysid aad ka simantihiin inaad ku xidhnaataa ilaa haddii muhiim tahay arrintaana ayaa laga waayay talada u dambaysa waxay tahay talaabooyin yaryar oo gaagaaban samee laakiin joogtaa waxaan xasuustaa nin aan aqaano isku masaajid baan ku tukan jirnay ninkaasi markuu salaad walba ka baxo kitaabku yar fura taasina waxaan oran jiray ninkii suufi buu noqday mar dambe uu tugo u wareystay wuxuu ii sheegay inankaasi in maalin walba markuu salaada saa loo tukado hal bog kaliya akhriya marka shantii salaadood imse bog buu akhriya shan bog macna wuxuu akhriya laba xisbi afartii maalmood buu dhamaynaya hal jis buu dhamaynaya marka halka maxaa kaaga muuqda halka waxa kaaga muuqda in hawl yar buu qabanaya laakiin hawsha yari ma aha hawl sahlan maalin walba buu qabanaya way ururaysaa hadhowna waxay noqonaysaa wax weyn marka doonaysa inaad wax barato taladan waxbay ku taraysaayo waxaad haddii aad doonayso inaad hal maalin aad wax ku barato maad fahmin habka waxbarashada cashar buu kugu tagayaa kelmadba kelmad kale kugu biiraysaa erey buu kugu biirayaa jumlad baad ku darsanaysaa marka dambe waxaad arkaysaa adoo meel sare taagan marka ku dadaal inaad tallaabooyin yaryar aad qaato laakiin joogtaa oo aanad ka waxa weeye xiise dhargeen isla sidoo kalena aanad joojinin waxaad ka faa'iidaysaa taladan isla sidoo kale de hawl badan oo kaaga baxaysaa ma jirto markaad nuusan quraan akhrido marka aad maalintii aad akhridid hal page waxay ka goynaysaa jirin akhris badonaysaa aad akhrido buugaagta hal bog hadaad maalintii akhrido hawl badan oo ka galaysaa ma jirto laakiin way urureysaayo marka dambana wax weyn bay noqonaysaa hadhowna waad kala qabsanaysaa hadhow page kaliya taagnaan weysay markaad la qabsato 10 page 20 page baad akhriyi doontaa marka waa good start point way oo meel fiican oo laga bilaabo way marka halka waxaan kugu soo gudbiyay talooyin aan isleeyahay wax badan bay ku tarayaan haddii tala si gaar ah ku taabatay jirto ka xishoonan xag hoose nagula soo wadaag adigoo ra'yigaagana ku daraya aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga aadna siisay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh